jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaarixda Siyaad Barre iyo madaxweyne ku-xigeenka Waaja la Sabatar oo si gaar ah ula tahay ciidamada qaybo kale oo hor leh ayaa haatan soo bilowday oo ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ah waa commandosta waa soo bajeetayaasha socod u gaar ah ayaa iyagu leeyihiin madaxduna si gaar ah ayaa ay u eegtaa soo bajeetayaasha halkan ay aragtaan ee soo maraya oo iyagu sita uniformki u gaar ah oo ciidamada Soomaaliyeed ayaa ka qayb qaadanaya damaashaadkan iyagoo halka cirka dadka dushooda ku sameynaya dowladda waa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed diyaaradahana way aragnaa iyagoo laba u wada kala sameynaya dowladda ciidanka cirka Soomaaliyeed waxa uu yahay hawada laliya waa ciidamada iyaguna soo majeefiyaasha oo iyagoo maraya waxa ku marayaan diyaradaha soo damaashaad leh oo badan ayaa u dul maraya dadka iyagoo dadkuna si aad ah u dawnayaan ciidamada soo bajeestayaasha ee commandosta ayaa iyaguna fagaraha maraya xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu yahay midii isagu u diiday dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya cadow kasta oo soo daandada isla mar ahaantaana tusaa darti lama ilaawaan cadow kasta oo si soo baxaysa in uu taaka ka mid ah dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya uu ku soo xadgudbo waxayna ay yihiin soo bajeestayaashan kuwa ay ku libna waxa ay gashan yihiin tuutihii u yaqaanay ciidamada soo majeestayaasha ee xoogga dalka Soomaaliyeed nimanka warka diranaha iyo kuwa wax sawiraba si aad ah ay ugu mashquulsan yihiin ciidamada waxa socdaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybtooda soo majeestayaasha dadkuna shacabka ayaa ay u garaacayaan socod gaar ah ayay leeyihiin markaliya ayay isla wada helayaan taanka socodkooda iyo qiiladooda iyo hadalkooda nool waxa uu yahay argagax ku rida iyo jabhad iyo jeer cadawga Soomaaliyeed kaasi waxa uu yahay mid ku rida gagax iyo naxdin iyo qalbi jabbaha cadawga Soomaaliyeed hadii jeer isku dayaha in uu soo qadaysto umada Soomaaliyeed jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya sidaada ayaa uu la socdaa madaxweyne Axmed Suleymaan Cabdi guddiga ay halkan ay kala socdaan halka wacdaraha ay ka muuqdaan ayaa ugu riyaaqayaan taleefiya ciidamada halkan maraya waxay ku dhawaaqayaan ayay nadiifinaya cad waxay ka kooran yihiin aad u fara badan kaleed waa u socdaa maraysa halkan waa horumar kala gadisan oo ka kooban qaybo fara badan oo ka tirsan yahay ciidanka soo bajeestayaasha ama commandosta ee dalka Soomaaliyeed soo bajeestayaasha commandosta ciidanka dalka Soomaaliyeed waxa ay ugu wajibkooda iyo ku cadawna baaba iyo hub ka yeela qalabkoodii dagaalku waa ciidan u dhan yahay soo majeestayaashani waxa ay naftooda ay u huraan iyo jeer daafacaada dalka hooyo waxayna ay kuwa ummadda Soomaaliyeed ay ku lido kuwa cadawga ummadda Soomaaliyeed goobta kala jabkay halaaga ku badan qalabkooda dagaalkooda iyo koox banaanin kaliya wata warinka waxaana ay ku dhawaaqayaan erayo din iyo qalb jab ku rida cadawga
إذا كانت إسوله ليان عرفت وحلياب وعيد ما عرفت له تببر يوم الصومالية أي سؤال لكم هذا مركو أركوا سيوكله وقوا كانت دب عيدما سو ما شفتياشا ee naftooriyaasha kamaan dowsa ee xoogga dalka Soomaaliya kuwani iyaga isu musiga iyagu musigu ma aha jaantada iyo uhlooda ayaa musiga kuwana waxa ay qaar ka tirsan ciidamada soo bajeestayaasha oo gabdhaha rag oo kale kuma koobnaa gabdhuhuna waxa ay ka yihiin safafka hore ee dafca dalka hooyo soo bajeestayaasha ku jira ee dalkeena had ka yureeyaha cadawga doonaha in ku soo dilo waa gabdhihii Soomaaliyeed ee soo bajeestayaasha ahaa ee ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweynaha iyo madaxda kale ee madaxweynaha xigeenada si weyn ayaa ay ugu riyaaqeen si weyn ayaa uu jalasiyaadii iyo madaxda xigeenada iyo madaxda kale ee guddiga siyaasadda golaha dhexe golaha ay ugu riyaaqayaan سوما تشيسياشا هلا كان هرمرا جارهان قبلها الصومالية كتبن عيدم سوما تشيسياشا صور كما دعويناها جمهورية الديمقراطية الصومالية جالي محمد ياد بري يقدق السياسة صور كودها oo kamid aha waxyaalaha runta aha ee fanaaniinta Soomaaliyeed xagga farshaxanka feerka dheer ay ku soo bandhigeen maanta 2022 halka kan maray ayaa iyagu ka music bilaabay kadib markii ay dhamadeen kooxihii samajeedayaasha nafsada warayaasha wararka fidiya gaar ahaan kuwa wax sawira si aad ah ay ugu maqsanaayeen sidii samajeedayaasha iyo xoogga marayaba ay soo uga qadan lahaayeen waa ay aragtaan oo iyaguna wata mootooyin